dawada waxa hotelka uu degan yahay ama rugta uu degan yahay aan ku booqanay siyaasiga weyn ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maalmahan isagu booqasho ku joogay wadanka Mareykanka guud ahaan xaaladda Soomaaliya iyo dhinaca siyaasadda ama dhaqaalaha iyo amniga ayaanu waraysigan idinku soo foolay idinku soo gudbinayna marka hore aan gobolka iyo dalka ku soo dhaweeyo Cabdiraxmaan aad ma santa al xaraare waayahay aan ka bilaabo Cabdiraxmaan marka ugu horeysa booqashada halkan ku timi maxay ku saabsan waxay ku saabsaneed martiqaad aan ka helay Soomaalida Mareykanka qaasatan magaalada Minneapolis ku dhaqan iyo martiqaad kale oo la xiriiray oo la kulamo kula lahaa magaalada Washington xarunta ah dawladda Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xarun cilmi baaris oo halka igu martiqaad inaan ka hadlo oo Heritage Foundation la yiraahdo kulamadeeda intaas oo asaas u ahaa طبعا سفرada aan dibadda ku socday maalmahan oo Soomaalida kula hadlayay oo ka soo bilaabay London ay kamid ahayd qayb ka ahayd safarada halkan ku imid inaan jaaliyada Soomaaliya isxog warsano aragtideena xisbi ahaan iyo siyaasadeed iyo qaabka ay tahay aan u sheegno maadaama dalkii gudihiisa cariiri badan oo ka yimid dibadda maadaama xorriyadda ay ku badan tahay dadka inaan wax badan la wadaagno way dhinaca siyaasadda markaad meel iska dhigtid ummadii Soomaaliyeed ama jaaliyadii Soomaaliyeed gobolka markaad la kulantay bal hadda sida dareenkaagu ahaa كنا درينكي هذا أسرية منيابلس وحقيقي مقطع ويكيرد ونت مالي كلا أنصار مري وحين وجد ونت كو صومالي نوع كستا إيو قاب كستا إيو ديجان كستا إيو أركتي سياسة هذا كستا يكو جوجان مركب حالي كرا أفكار قلاد ومال أو ضدكو أي كلا دافرس أيهين كلا دوينهين بولايسد ضدكو كلا أركتي فوقيهين مركب آذان وفر حرونتي أيضا لما ديسين هاي أو وأنا هذا خلاف جري دور جر وحاسوس تام مدحونيال meesha yimid mudaharaad jiray kuwa maaratool ka lagu la qaab jiray marka waxaan aad ugu faraxsanahay runtii jaaliyada oo midaysan oo israacsan inay soo dhaweyso aragtideeda iyo ra'yigeena ay dhageystaan inta ku diidan iyo inta ku ogol ama ku rabtayba marka la isku diro midnimada iyo Soomaalinimada ma dareemaysaa inay dad Soomaaliyeed oo isku xidhan oo haba kala aragti duwanaadana inay yihiin aad waxaan dareemay dad basal oo gaaray in waxaan ka dhaxeeyo common ground ka yiraahdo inay ka wada shaqeeyaan runtii taasna waxay qayb ka tahay value-ga iyo qiyamka dawladda dadka Mareykanka ayaa ku dhisan oo og tahay aragti kala duwanaanta iyo fikirka kala duwan iyo aragtida kala gedisan waxa dawladda Mareykanka ay ku dhisan tahay Soomaalidana si tartiib ayaa moodaa inay dhaqankaas ilbaxnimada ay u qaadanayaan way su'aalaheeni kale dhinaca siyaasadda Soomaaliya ayaan guud gali doonaa xaaladda Soomaaliya Cabdiraxmaan inta badan waxaad ku tilmaantaa in imika lagu jiro xaalad adag oo ay Soomaaliya ku jirto waa maxay sababtu waxay tahay Soomaalidan wali isku fahmin geedi socodka dhismaha dawladnimada iyo nabadda Soomaaliya dagaal ka dhacay noocyo kala duwan leh dawladda la riday civil war dhacay dagaal sokeeyay qablayaal iyo ka soo dhashay qablayaashiis wadankiisa u haysteen haddana shabaab ka dhashay iyo qaab darro falxun faragelin Itoobiya ka dhalatay ciidamada amisom 20 kun kor degan oo adduunka beela oo malaayiin dollar ku bixiya walina waan saldhig la'ahay marka taas ayadoo tahay ayaa waxa soo biiray in gobolkii isbedel xoog leh oo ka dhacay Soomaaliya meesha ay adduunka uga taalo oo aad loo soo daneeyay oo dawladihii quwadii shisheeyay waaweynaa ee adduunka iyo kuwii gobolka gacanka khaliijka oo kale deganaa iyo kuwii geeska Afrikaba waxa sii dheer dawladda Itoobiya isbedel xoog leh ayadii ka socdo waxa soo dhan oo isbiirsada ayaa waxay Soomaaliya maanta dhigeen in ay tahay meel maaragtay xaaladeeda ay sii adkaanayso sii cakarnaanayso runtii qodobka ugu gudbana isbedelada Itoobiya su'aalaha way ku jiraan aan ku weydiiyo amniga Muqdisho maalmahan u dambeeyay ama bilahan u dambeeyay sidoo والله دي أمنيجا رنتي وحواي شباب نمك اللي يراهد أي أمنيجا درهذا أقوم دران هذا الصومالي أي كتيم هذا وحامو دا إن أي نمكي هلان حرية أظفر بدن لا بس أنا كدوات هذا دورودان أي جرتو شباب ويرلو مقادين لما أتاجين مدعينا وحوش شكتو قبصدي لا بس أنا جدود ما أنتو حفيز كيمت إنه ضلك أقوى حرينيو الشباب أقوى حريني إلا هذا ويرلو مقادين ما لقى محريني بالعكس أيجا أتاج أيجا ويرة
ayagaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa dalka ka dhacay geystay dadkay xasuuqeen markaa fiirisay numberkooda dadka ay assassinationka ama ay ku dilaan shirqoolada sida hadda ay lacagta u aruuriyaan oo revenue collectionka waxaa la yidhaha canshuurta ay u aruursadaan markaa fiiriso ayagiiyaa cadaaladoodii iyo maxkamadahoodii saf shabaabka magaalada dhanay ka qaadaan muqdisho kulli ka qaadaan dukaamanka ganacsatada suuqyaday ka qaadaan way ogtahay dowladdu way ogtahay markaa fiiriso sida meelahoodii cadaaladda looga doonanayo oo hataa saraakiishii dowladda hadda ay bilaabeen inay ka raadsadaan dhulka shabaab cadaalad ay ka raadsadaan markaa fiiriso waxa ii muuqato dee shabaab xoogeystay baraaray iyo dowladdiiyo wax ka qabala shabaabkii ay muuqda oo sarkaali ama mas-uuliye sidee cadaalad uga doonan karaa shabaab way dhacdaa warbixinta aan hayno way dhacdaa guryo oo kale la isku qabtay dowladka guryaha waxa la isku qabto dhan ayaguna waxay siiyaan sidana loo sheegay in aysan hadda kala xisaabtamaynin dowladda iyo waxay isku hayaan laakiin oo u yimaado arinta maxkamadda looga yeeray garsoorka markay ka wacaan inuu tago marka dee awooddaasi shabaabda leeyihiin nimankii bursiga ku jiray raacdada ku jiray dhulka laga qabsanayay deegaanada laga xoreynayay hadda ayagaa soo laba kacleeyo dalkii iyo sababtoo ah dowladdii arrimo kale ay ku mashquulsan tahay oo kuwa mashquulsanaba la tacaal iyo la dagaalid al-shabaab inta muuqata cabdiraxmaan waxaa jirtay mar gurigaaga lagu soo weeraray dad ay ku dhinteen sida igu maqaalaa adiga jug lagu gaarsiiyey arrimahaasi oo lagaaga shigsanaa inaad arrimo dowladda lidku ah sida lagu eedeynayay aad ku guda jirtay qaarkood waxay leeyihiinba dowladda imaaraadka carabta ayaa dhaqaale buuran siisay cabdiraxmaan dabeetana dowladda ka horkeenaysa wax kastoo ahaataba marka ugu horreysa aan ku weydiiyo dacwaddaasi xaggee kaga hadhay xaggee ku dhamaatay runtii dee weerarkii waata ogeed cali waa dhacay 5 qofood oo kamida ilaaladii aniga ila joogtaa la dilay oo kana tirsan waliba ciidanka Soomaaliyeed kabahooda lagu aasay waa la socotaa ilaa hadda aan maanta aan hadlayno dadkaas cadaalad ma helin dadkii dhibka geystay maxkamad lama saarin lama baarin lama macnihi xilliga ma qaadin waxa loo raacday ilaa haddeertaan waxa marka jira waxa waaye aniga wixii igu dhacay ee dhibkii gaaray isay wax ii gaareen waan sheegay haddana waan sheegayaa waana sheegi doonaa dowladdu waa dowlad inta baaritaan samayso wixii dhacay sidii u dhaceen iyo cidda samaysay iyo waxa meesha ka dhacay dhibka la geystay ilaa hadda wax baaritaan ah dowladdii lagama hayo bal dadkii dambiga geystay ee dadka dilay weerarka soo qaaday ee kamaha ku aasay dowladdu way dalacsiisay garsoorayaashii ayaga la saftay oo annaga maaragtay si sharci darro ah nooga hiiliyey waa la dalacsiiyey saraakiishii ku lug lahayd waa la dalacsiiyey marka dee dowladdiian waxaan ka rabnaa accountkeeda ayada waxa meesha ka dhacay inay dadka Soomaali u sheegto ay tiraahdo baaritaankaasaan samaynay sidaas iyo sidaas wax u dhaceen kama hayna ilaa haddeerta waaye dowladda hadda inama joogto su-aasha ma weydiin karno laakiin adiga dhinacaagii aan mar kale kuu soo celiyo toodii qaladkoodii haddii ay sidaa tahay oo weerarkaa geysteen dad ku dhinteen aanay ka daba tegin oo aanay cadaaladii horkeenin dacwaddii adigu cabdiraxmaan ahaan maxaad u galabsatay inaad arrintaas oo dhan ay dhacdo maxaad gacanta kula jirtay shirkaagu maxaad weydiiday waxaan wada un keliya inaan halkaa shirar qabta magaalada oo sida dastuurka damaano qaadayo ilaa 7 shir oo kala duwan dhalinyarada iyo dadka siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka aan kula hadlo dowladda dhaliilaha aan u arko in aniga markaas ay ila quman yihiin aan jeediyo wax intaas ka badan oo aniga aan sameeyo cabdiraxmaan ahaan ah ma jirto haddii aan sameeyna gurigeyga waa lagu soo duulay wax allaale wixii yaalana waa la qaatay wax allaale iyo wixii aan gacan haddaan kula jiray sameynayana waa la helay dowladda waxaan ku leeyahay dowladda inay soo bandhigto ayaa laga rabaa macnihi waxaa haddii waxba soo bandhigaynin waxay haysan lama arkay dowladdu waxay dhibsatay hadalkayga waxay dhibsatay ra'yigayga aan dadka u sheegayo waxay dhibsatay inaan ka aragti duwanahay wax kale anigu uma jeedo meesha yaala inta badan waxaad dhaleeshaa siyaasadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo cabdiraxmaan farmaajo ma dagaal hoose ka dhexeeya mise siyaasadda iyo systemka dowladda ayaad aada u diidatay maya dagaal nagama dhexeeya siyaasadda iyo dalka halkuu ku wada iyo qaabka u wadaan diidana waaya waad tartanteen hadda ka hor waxaad ka qayb gashay tartankii madaxtinimo ee uu isagu ku guulaystay weliba xilligaa waxaa laga yaabaa inaad aada ula haysay oo laga yaaba inaad codadkaaga xitaa jeclayd inaad isaga dhinaciisa u gudisay si uu madaxweyne u noqdo si kastaba ha noqdee ama si kastaba abaalkii ha u gudee muddo yar kadibna runtii waxaad soo jeedisay dhaliilo fara badan iyo mucaarad fara badan oo aad farmaajo ku tahay dadka qaar baa ku arkaya mar haddii ninkii aada wada tartanteen oo isagii uu guulaystay in dhinac marka laga eego aad diidan tahay oo aad jeclayd inaad adigu guulaysatay
arrintaas waxa weeyaan muxuu meesha iga qaaday oo uu iga guulaystay mise systemkii uu la yimid iyo nidaamkii uu la yimid baad dib u eegtay dabeetana aada dhalishay haddii fiiri dowladda markay timid anigu talooyin yaan sii jiray si hoose oo private ah waxaan aragnay in talooyinkaas cid ay dhagaheeda ku dhacayaan aysan jirin hadda annaga ka siyaasiyiin ahaan ka mucaarad ahaan mas-uuliyadana saaran dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan inaan dowladda tala siinay taladii marka hoosaan gudbinayna waxaan u soo bedelnay inaan si dadweynaha Soomaaliyeed amaanadaas aan u hayno oo siyaasadda aan ugu jirno inaan la wadaagno dhahno war dowladda taladana siinahay la socda wax dheeraad intaas ka badan aan sameeyay lama arko dhaliilihii aan dhowrka bilood hoosta u sheegaynay yoonba markii dambe kor u sheegnay wax oo colaada iyo wax dhibaata iyo waxaan u qabnanay inuu farmaajo guuleysto ma jirto normalina siyaasadda Soomaaliya markii la tartamay dhaqana jiro madaxweynaha markaas fadhiyo inta kale oo mucaaradka inay dhahaan aan midowno aan xodka isku darno si madaxweynaha xilka looga qaado saas madaxweynaha asii ku horeeyay looga qaaday Sheekh Shariif Xasan Sheekh ku horeeyay xashii qaasaas xilka looga qaaday waa dhaqan siyaasadeed oo jiro waaye taas aan waxaan ka qaban karaa Cabdiraxmaan ahaan ma laha farmaajina dadkaas tartamayay codka isgaashaanbuuraysiga sameeyay qayb ka ahaa laakiin wax shakhsiyan aan u qabo iyo wax problema ma jiraan anigu waxaan diidanahay waxa waaye farmaajo iyo tiimka meesha la jooga iyo ra'iisul wasaarihiisa dalka dhinaca ay u wadaan dhinacii saxda ahay maaha meeshii la keenay la rabay Soomaali isku raacday inay u wadaanna ma aha ma u tagtay oo sida aan ku horfadhiyo ma horfadhiisatay mid kamid ah ama khayre ama farmaajo oo ma tiri waxaan ayaa talooyin toosinaya xukuumaddiina ama nidaamka dowladnimo ama guud ahaanba Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed baad xaq baad u leedahay waddankaagii halkaad ka dumin lahayd inaad toosisid talooyinka ma soo horreyto talooyinka muhiim ah ayaga inaan si personal u arki qasab ma laakiin dad ayaga la xiriira oo galaangal u leh oo saameyn ku leh inta muddo ka badan intaas waqti badan waan wada fadhiisanay talooyinkaas waan u gudbiyay waan u sheegay laakiin anigu dadka mihi irdaha madaxda tagtaga oo fadhiista un mana jecel dhaqan ahaan laakiin dad ayaga aan isleeyahay asxaab aan nahay oo ayagana saameyn ku leh fariimaha si xoog leh waan ugu gudbinay su-aasha waa ku weydiin doonaa xisbigaaga wadajir ee aad guddoomiyaha u tahay iyo doorashooyinka soo socda kaalintuu ka keli doono laakiin waxaan doonayaa weli horta qaybta mucaaradnimadaada inaan xoogaa ka sargaaro su-aasha kale haddaan ku weydiiya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dowladda maxaad ka rabtaa si kooban maxaad odhanay dowladda aniga waxaan ka rabaa dhaqan cusub oo mucaaradnimada Soomaalida mucaaradnimada qalad u fahamsan tahay waxayna qalad ugu fahamsan tahay xaqay u leedahay sababtoo mucaarad waxaa la arki jiray mid hubaysan Soomaalidu kaas un bay taqaanay sababtoo dowladdiyan aan aragnay aan furin isbeyska dad dowladda kale ay duwan ay ku joogi karaan dalka ay wax ku soo jeedi karaan ma jirin taas waxay jirtay nidaamkii dimuqraadiga markuu jiray oo dowladda xukunka haysa la mucaaradi jiray dadka mucaaradkaana ay nabadgelyo helayeen dowladdii ka dambeysay ma ogoleen space dadku inta la joogaan ay ku mucaarad dadkii marka waxay ku qasbanaadeen inay noqdaan mucaarad hubaysan dadku marka mucaaradnimada waxa ku soo dhacaysa in wax hubaysan oo wax la duminayo wax la qaribayo inay tahay annaga marka ma nihin mucaarad hubaysan hoob ma sidano laba waxaan kale ahayn oo muhiim ah mucaarad dowladdu wax ka rabana ma nihin mucaaradka bariyaha wuxuu u badnaa dowladda ku qayli ku buuqa si ama mansab lagu siiyo ama dhaqaale lagu siiyo ama wax lagu siiyo dowladda pressure ku wada annaga ma nihin kaas annaga dowladda waan sugaynaa muddadeeda waana ka ra'yi duwannahay waxaan rabnaa dadka Soomaaliya inaan waddo cusub u furno oo ah dad dowladda ka ra'yi duwan waxna ka rabin laakiin talana siinaya ra'yiga mucaaradnimada jeeyo waa talo anigu aragtida aan jeediyo warsaas wax la yar markii la yiraahdo waa taladu macnaheedu ma aha kaliya inaan dhahdo caliyow saan qabaamaha babliga talada aan jeediyo dowladda ayada fursad u tahay inay ka faa'iideysato dadka aniga ila midkaas sidoo kale talooyinka la siinay inay ka faa'iideysato ayada la rabaa mas'uuliyadaas inay qaado annaga marka waxaan nahay si nabada oo dimuqraadiya oo ilbaxnimo oo wax yar oo violence ama gacan ka hadal ku jirin wax yar oo dhibaato ku jirna rabnaan ra'yigeena u gudbino dowladdana waxaa rabaa inay aqbasho laakiin haddii dowladdii iska dhaaf dadkii siyaasiyiinta haye askarigii ra'yi weydiiyaaba ay aqbali karin qofkii wax sheegaana ay yeeli karin wiil dhalinyaro haddoo meel far ka taagan aysan xamili karin hadda waa dhibaato dowladdaas dulqaadkeeda aad u yaryahay runtii caliyo marka dowladdu ma il gaara bay ku haysaa cabdiraxmaan cabdishakuur mise cid alla ciddii far ku fiiqda dowladdu way la kacaysaa oo xabsi bay dhigaysaa qofka runtii horta anigu waxaan isleeyahay dowladdu anigu si gooni ah yay ii daba taagan tahay waaba i weerartay waa ogtahay social media intaasoo ciidana aniga la ii rakibay keliga oo shaqo kale aan lahayn dhaqaalo badan baa lagu bixiyaa Nairobi aan tagay jaaliyadu soo dhaweynaysaa laga daba tago la baloogay
oo la yiri ninkan meeshaas kama hadli karo waa la isku dayaa maanta oo dhan meeshaan istaagi iyo meeshaan tago in waxa keenayna waxa waaye dawladda ma ogola dadka ra'yi duwan media hadeerta warbaahinta xorta ah ayada mid ay leedahay madaxdeena caliyow ma ogola warbaahin xor in la hadlaan adig kula hadli maayaan telefishin madax banaan lama hadlaan ka waxay la hadlaan kaliya raadiyaha qaranka iyo TV-ga qaranka su'aalo la soo diyaariyay madaxdii hore waxaan ku naqaan dadkii hor imaadaan hor fadhiistaan su'aalo la weydiiyo la challenge gareeyo wax walba loo sheego telefishin xor lama hadlaan ma ogola hadday la hadlaan waa inay conditionno ayaga ay wataan ama shuruudo ayaga ay wataan ay kula hadlaan adigu hadda maanta interview ay qaadaysa shaqada kuguma xirin maxaad i weydiinaysaa kuma dhihin taas ma hayaan labo telefishinada madax badnaa anigu xog waxaan ku hayaa oo rag ka shaqeeya telefishinada maamulka kale ay warameen in lacag la siiyo raadiyaasha ugu muhiimsan magaalada rag ka shaqeeya madax ka waxay ii sheegeen inay dawladda lacag siisay tir naga aamusa amana amaana lacagta la siiyana way ii sheegay xataa xadigeeda haddii warbaahintii xorta ahayd aysan waxba dhaliil sheegaynin haddii baarlamaankii gudoomiye inta xilkii laga tuuro la yiri hanaga hadlin oo baarlamaankii Soomaaliyeed aamusan yahay oo dawladda la xisaabtamaynin hadda codka kaliya ee dawladdii dhahayo war dawladdu waxaan ay ku dhacayso waa qalad war strategic mistake ay sameynaysaa wuxuu noqday wadajir iyo annaga dadkeenan hoggaanka jooga tii dhibsa dawladda marka culays ay u aragtay inay dhibsatana maaha sababtoo waxaan baan nahayba codka kaliya dawladda saxaya dad badan oo taageersan Cabdiraxmaan dawladda iminka jirta ayaa waxay rumaysan yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu yahay ninka qura ee doonaya dawladda inuu dumiyo maskaxdaada mucaarad kastaba aha wax badan badiidano Soomaalidu bidhaanta u soo yara baxday iyo rajada dad badan qabaan in dawlad fiican ay u timaado oo ay u hagaagto mustaqbalka waliba dhalinyaradan iyagu mustaqbalka doonaya inay xoogii mustaqbalka yihiin oo ay shaqaystaan oo ay wadanka ku soo kordhiyaan oo kan niyad jabi karaya haddii meeshii qura ay karayeen la damco in la dumiyo ka Cabdiraxmaan ahaan mucaaradnimada ودولة المغرب بس لا ماشي كل قاعدة بس واحد زي دولة توسي مين كل قاعدة ما وحاربنا دولة إن تهجناته دولة أنا وحقيتها إنستوشنك مدحتوية ده يمدحون فرماجة الله بإيكلا حكومة ده رجال خير الله بإيكلا برلمانك يقدونك برلمانك مرسل محمد شق الله بإيكليه أنا وحقيقة سارن أشخاصتا إنستوشنك annaga institutionka inay dawladaha hay'adaha dawliga ah inay dhismaan Soomaali dhan way rabtaan hal qol kaliya diidan waa al-shabaab inta kale waxa la isku raacsan inay jiraan dadka hogaaminaya marka hay'adahaas wuxuu ku hogaaminayaan siyaasadda ayaga ay leeyihiin aragtidaas aan u dhalisanahay si u dhaliili kartid wax kama sheegi kartid in la dhaxane hadda waa qalad sababtoo aragtidaas aan aragti ka duwan yaan qaba dadkiina dad individual oo shakhsi oo naseexo si hoose loogu sheegayo naseexada sharciga islaamka iyo ka ilbaxnimada waxay qabtaa marka qof si private oo hadlaysa si private la qof haduu public yahay oo xafiis public yimid hada asaga soo doonta shaqadan waa in si aniga naftayda waa la dhaliila waa la dhaliila waxa laga sheegaa because ana soo doontay ilaa oo public yimid qofkii public yimaada marka waa inuu tabarteedii dulqaadkeeda yeesha hadii ka uu xafadiisa joogo Cabdiraxmaan maxaa xiriir oo idinka dhaxeeya rag iyaguna mucaarada oo qaarkood ay ku jiraan xildhibaanada haddaan tusaale soo qaato mahad salaad iyo fiqa oo kale labada haddaan tusaale qaato adiga Cabdiraxmaan maxaa xiriir oo idinka dhaxeeya laba xisbi ana shaqo xisbiga ugu lahayn ka tirsan inna xisbi daljiri oo ka tirsan yahay ninna xisbi la yiraahdo oo qool la yiraahdo isbahaysi ama kudla siyaasadeed oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa Allahu musta'an oo ka tirsan yahay oo kaleeto oo ka yahay dalada mucaaradnimo iyo fikirku isku mid ka tiim soo ku kala duwantii wallahi de anagu xisbiye kala duwan iyo gruubi kala duwan nahay laakiin waa laga yaabaa mararka qaarkood inaan dhaliisheena ay isku soo dhacdo mararka qaarkood inaan waa ogahay meelo badan oo kala ra'yi duwan ana oo ku saabsan waxa siyaasadda Soomaaliya yimaada laakiin waa laga yaabaa inaan mararka qaarkood isku soo dhacnana waa dhici kartaa laakiin xidhiidh gaar oo si gooni ma jirto su'aasha waxaan ku weydiinaa waxa weeye aan kula kaftamay waxaan social media ku arkay sawir aad isla sawirantay idinkoo aad u yar yar oo qurux badan oo dhowdhowan oo caata oo sidii Soomaalidu ay u muuqan jirtay marka waxaan sirtoo nimankan ilaa yaraantoodii mucaaradnimadan iyo hawlaha ku jira aad iyo aad baa mahadsan waa ku soo kaas walaalkay waay
nin iga yar da iga yar waay ninkaas aniga ma magacaaga ku qoran ma Cabdirasaaq ale nin dhowr sano iga yar waliba waaya anu soo noqon marka xisbigaaga wada jir bal in yar oo kooban xisbigaaga horta bal fakriga sida xisbigayga wada jir www.wajir website leeyahay leeyahay anaga waxaan u taaganahay principle cad oo halkaas ku qoran oo hadda kulligood karka wada sheegi karin laakiin anaga waxaan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya inay tahay marxalad ay ku jirto ay u baahan tahay is ogol iyo isla gudoon in lagu wado anaga labada hal ku dhig oo meel kasta nagu qoran waxa waaye marxalad waxa lagu jira ilaa laga gaarayo qofka hoggaanka Soomaaliya qabanaya in dadku ay ku soo doortaan qof iyo cod ay sharciyo legitimacy ay xoog ay buuxda ay siiyaan intii ka horeyso Soomaalidu ay kala qaybsan tahay wali kala aamin baxsan tahay deegaano maamulo kala duwan leedahay ciidanka isku darsanayn nabadgelyada isku darsanayn dhaqaalaha isku darsanayn in lagu wado is ogol iyo isla gudoon talada la isla gudoomiyo is ogolna wax walba oo go'aan kasto la qaadayo lagu dhiso anaga hadaan wada jirnay labadaas asal noo waxa kale asaas noo ah Soomaalidu mashruuceena isku tashi la yiraahdaa isku tashi macnaheedu ma ina isku filanahay ma dadka badana ku qaldaan isku filnaasho anaga uma socono meesha ugu dambayso raadinayna way tahay laakiin hadda Soomaaliya isku filan ma dhigi karno laakiin aqliga in la bedelo oo dadku Soomaaliya isku tashadaan ay ayaga gacan shisheeye wax ka sugin hadda wax kasta waxa laga sugaa gacan shisheeye dawladdu waxay ku faanaysaa shir process inay tagtay waxay ku faanaysaa shir hebel inay tagtay waxay ku faanaysaa halkaas inay tagtay waxay ku faanaysaa IMF inay aragtay waxay ku faanaysaa hebel asaasna yiri waxaan ku qaabilnay maanta hebel aan qaabilnay waxaas dawladnimada wax ku soo kordhimaya sax waaye qayb ka yihiin laakiin wixii ummadda Soomaaliyeed loo ballan qaaday lagu dhiirigelinayo ma aha dadku inay isku tashadaan taladan dhexda la dhigo dalka Soomaaliyeed midnimadiisa iyo wada jirkiisana la ilaaliyo anaga intaas xubnaha ku jira xagee ka kalsoon waa fara badan yihiin dadka duwan ba xisbiga haddaan dhisnay hal sano xoogaa uu jira waa cusub yahay guddiga madaxa bannaan ee xisbiyada qaabilsan waxaa shardi ah xisbiga in sagaal gobol laga furo marka waxaan rabnaa in anagoo raacayna sharciga iyo inaan waasicino bayska xisbigaba inaan gobolada dalka hadda markaan ka noqdo safarada dibadda oo laamaha dibadda aan ka wada furnaa deertaan laan kasta dibadda meel ka soo tagno laan xisbiga aan ka furaynay inaan gudaha asaas oo kale gobolada dalka oo dhan aan ku baahino ka furno dadka Soomaaliyeed aan gacmo furan ku soo dhaweyno xisbigaas ay qayb ka noqdaan waay hadafkeena deertaan waxa lagu qaybsadaa ilaa hadda Cabdiraxmaan oo sidaa la socotay 4.5 sanadka 2020 kana waxa la doonayaa in qof iyo cod sida tilmaamisid lagu yimaado ama asxaabta kala duwan ay markaas doorasho ay ku galaan xisbiyadooda ma isleedahay waa loo bisil yahay maadaama dawladda ay 2 sano u hadhay in sanadka 2020 lagu gaadho in xilliga xisbiyada oo qabaa'ilka waxa laga baxo inay tahay mise waxa isleedahay wali ma dhawa runtii in 0.5 waxa lagu qaybiyo 4.5 waxa lagu qaybiyo duruufaha keentay beelaha Soomaaliyeed qaar kamidana waxay arkaan saas in cadaalad ku jirto qaarna ma arkaan qaarka aan arkin waa la gartay laakiin kuwa arka in cadaalad saas ku jirto yaa u baahan in laga qanciyo oo la yiraahdo warsaanu dan ugu ma jirto dalkan horena uma socdo 4.5 hatta hadii wax kale la waayo xageen ku limid xageen ku joojinaa hadda waxa la taliicin hadii la magacaabayo 4.5 hadii agaasiman la magacaabayo 4.5 hadii safiir la magacaabayo 4.5 hadii gudoomiye la magacaabayo 4.5 hadii central bank governor la magacaabayo 4.5 ma siyaasadan ku ekayna mise maamulka dawladana u soo dejina waa in laga hadlaa dadkan cabashada qaba ee u arka inay 4.5 cadaalada ugu jirtane in la yiraahdo warsaanu cadaalad ma ahane cadaaladu saan si ka duwan la tuso cadaalad ka duwan kan hadda ay aaminsan cadaalad lagu qanciyo waanu baahana laakiin in nidaam xisbi doorasho lagu galo taas kuma xirna xisbiyadu waa inay ayagu liiska hadii la yiraahdo xubnaha baarlamaanka waa 225 xisbigu liis uu dhiganaya ama ahaado hal liis ama ahaado liis goboleedyada dawlad goboleedyada ku saleysan ahaado liiskaas inuu ku tartamo waxa tartamaya marka xisbiga ay noqdaan waa la yeeli karaa 2020 kana waa laga gaarsiin karaa dawladdan hadeerta shaqada laga rabo waa taas ma aha shaqo ay dawladuhu hore soo qabteen وقتها علي ما يصير الدولة بناك على وصول السي مركي كمالها اللي بحي جودها اللي ودي سي جودها مركي اللي ودي سي أضياء شاحولاي برلمانك والله صعطة تي هذا لو كن لحي توانك إرجوينا واحد دورنا أي دولة وحالها واحد ديرات كسي هرية تاس إني الاتماد واحد اللي يسويها تاس دورشة تكسي إكتاي نقطة مد ديار أي نقطة هذه دورشة أما حسب كسوق عبد الرحمن أما sidii kale caadiga ah tartanka caadiga furan baad ku soo gashay hadii bari ka maalin sanadka 2020
ilaahay baa caalim ku tahay ayba dhacdo inaad dalka hogaamisid oo aad madaxweyne ka noqotid adigoo ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maanta runtii waad i qaabishay markii aan ku weydiiyey inaan interview kaa qaadayo si fiican baad ii soo dhaweysay waxaan adigu tiri su-aasha doontida weydiiyey berri ka maalin 20 haddaynu noolahay oo aan ku imaado lagu yidhaahdo cali xidhaadha doonay inuu waraysi kaa qaado miyaad sida farmaajo oo kale iminka aad yeesheen oo aad tirahdeen iga daayo weli qolooyinkaa wax waraysanaya ma doonaya mise waad ka duwan tahay waxaad leedahay anigu waxaan hay nin furfuran oo ogol in si dimuqraadiyada loo wada hadlo in la weydiiyo qofka wax alla wixii la doonay su-aalaha ku saabsan xukuumaddiisa sidee kaga duwanaan kartaa baan ujeedaa madaxweynaha haddaa noqotay aad iyo aad anigu mar kasta cali waxaan diyaar u ahay xil aan dalka u hayo يعني حل هاي أنا وحنا مثلا معارضة ورتني حلتها تصبر الصوم على هايستان معارضة بس حل هين أدونك معارضة وحل وأنا مسؤولية لم يدا مدي دولتها أنا يهدان معارضة هاي وحل معارضة ما هاي يهدان حل دولتها هاي وحن ديار وهاي إن أن فنتي أن لحظ الميديا ولي أنت سياسة كوجر مر عن ميديا كعود دارت حل عن هاي أميان هاي مجرته ولي بقى أيضا ميديا أد يرد جالسين ولي بقى أنا وإسامرتي أيوة صاحبنا هنا وإسامرتي عبد الرحمن كليه معها madaxweynaashii ku horreeyay madaxweyne farmaajo dadka hore ma jireen waa in la siiyaa maxaa la yidhi gaal dil gartiisana sii xasan sheekh shariif dadka hore ma jireen prime ministerada cabdiweli gaas cumar cabdirashiid saacid sirdoon nin kastoo meeshaan soo maray cabdiweli sheekh nin kastoo waa hore ma jiro dadka xasan khayre iyo farmaajo waxaa laga rabaa dadka inay hor imaadaan ma aha inay maanta oo dhan raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaran keliya ay warsadaan ay wasiirada dhaan idaacadda ka akhriya waxaas dhaqankaas ma rabno waxaan rabnaa inay hor imaadaan dadka town hall meeting la qaba jiray inay qabtaan su'aalo la weydiiyo la challenge gareeyo waad ogtahay culimada hadda ayaga durbaanku timaya madaxweynihii kan ka horreeyay inta soo hor istaagay ilaahay ka cabsa ay dhihi jireen la hadli jireen annaga waxaan rabnaa dhaqankaas waa culture Soomaalida ay soo wadi sanadahan inay waxaan arkay anuu xasan sheekh oo challenge gareynay cabdiweli oo prime minister Ali Gaas oo hortaagan xasan sheekh oo hortaagan waan aragnay waxaan u baahanahay marka dhaqankaas ay la yimaadaan dhaqanka la leeyahay wiil aniga su'aalihiisa u soo dhiibay kaliya ha warsado lama rabo arintaas arrin muhiim ah caliyo xilaa in ka saaran qoladiina warbaahinta dawladda in la yiraahdo hor imaada media horta hadalkan ku aynu duubana barika meel buu ooli doona waxa laga yaabaa 10 sano kadib dib loo soo saaro ama dib loo dhigo hadii aynu noolahay hadii kala insha Allah sida imka aad dawladda mucaaradka ugu tahay markaad madaxweyne noqotid hadii uu soo baxo nin cabdiraxmaan cabdishakuur oo kala ah oo mucaaradka ugu noqdo oo khudbado badan jeediyay oo dad fara badan la kulma aragtidaada ma waxaas leeyahay ninka mucaaradnimadiisa u daa oo helo xaqiisa uu leeyahay kama hadlo mise sida dawladda imka jirta ee adiga lagu galay ayaad gurigiisa ugu weerar lahayd gacan ka jabin lahayd ilaalada hortaagan asaas ku fur lahayd sidee yeelay runtii aniga waa ii muuqataa cabsi kama qabo qof ra'yi uu soo jeediyey waxaan isku dayi lahaa qofkaas ra'yigiisa inaan ixtiraamo ku qadariyo waxaan isku dayi lahaa inaan taladiisa aan qaato waxaan isku dayi lahaa runtii qof karti iyo dadnimo leh inuu yahay inuu ila shaqeeyo dawladnimada qayb ka noqdo hadduu diido ka cudur daartane aan ra'yigiisa iyo taladiisa qaato sida saxda oo madax kasta oo Soomaaliya imaanaysa laga rabana waa taas waxaana kalifayaba duruufaha adduunka maanta wuxuu marayaa social media oo warka iyo xorriyadda iyo dawladda Itoobiya inta la eego murqaha weyneed ee xoog weyneed وعلويسي حريدي هذلك وعلويسي dadkii ka reed wana maanta waa taas banaanka la jooga ninka marka hadda isku dayayaba age of la joogo social media inuu wax control oo dad afka qabto oo dad guri ku weeraro aan waxa u maana ninkaas waa habsaan waay meel uu habsaan ka yahay war dadka lama celi karo hadii xataa aad guri ugu dhacdana Facebook ay joogan Twitter ka dhex fadhiyaan WhatsApp ka joogan maana uga fakanaysa lama arko marka inaad soo kalsoonaato aragti iyo ra'yi la timaado maahane dad hadda la caburi kara adduunka inay jiraan aniga ma filaayo aad baa mahadsantahay gudoomiye cabdiraxmaan su'aal kale ayaan rabaayo dad badan ay hore ku weydiiyeen baa laga yaabaa laakiin anigu maadaama ay tahay markii ugu horreysay kula kulmo in aniguna aan ka sii shaafiyo ama aan farintaada sii gaarsiiyo wadda Soomaaliya inta ka hadhay dad badan baa marka la yiraahdo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxay la soo boodaan ninkii badda iibsaday waa gartay adiga Cumar Cabdirashiid arinta maxaad ka oranahay waxaan ka oranayaa arintii maxkamadda tagtay Soomaa Caliyo dawladii Kenya maxkamadda tagtay dawladda Kenya warqad la soo baxday dhahdo badda walkii iyo maxaan ku haystaa waa saas moogtay hadaan uu telefoonka ka iibiyo oo darajo ku qabsado waa laga iibsado warqad la soo bixinay marka dawladda Kenya waxa uu iibinay lama imaan meeshii labo xilaalihii qaranka arinta gacanta ku hayeen hadda in taalana loo dhiso oo dadka Soomaaliya u sheegay badbaadada aan badbaadinay badda Soomaaliya oo yaradii meesha tagani markii dawladda Kenya ku dooday
war annaga dee maxkamadda waa laga horeeyaa oo wada hadalaa ka horeeya waxaa lagu yidhi wada hadalkii waa soo dhammaaday dowladdii tan ka horreysay waxaa geeyey dowladda dacwada waxaa geeyey xasan sheekh dowladdiisii yaa wada hadalkii in la soo dhammaysaa la yidhi waa qolada keliya kasoo afxirtay meesha ay ahayd laakiin mid dadka waa inay ogaadaan waayo kenya badda waan ka dhignay annaga 2005 ay jeexatay 2005 ayay jeexatay xada ayada leedahay oo dhulkeeni ah ay kusoo xadgudubtay cali hadduu nin shaatigaa kugu qabsadane labaa kuu furan horta inuu kusoo haweysan karinba oo kugu qabsan karinba xeerkaas ah soomaali markaas ma joogin soomaali shaatigeeda xil lagu qabsan karay joogtay haddii lagu qabsada inaad tirahdo walaalow shaatiga ana iska lahay u qabsanin oo haddii mar yimaadana adduunkii dadka kala saari jiray loo gar dhigto intaas waxaan ahayn ma jirto marka waa dacaayad laakiin midaan kuu sheegaa dadka Soomaaliyeed intii dacaayadaas iyo dabawada anu waan iska cafiyay markay ogaadeen xiraalihii hadlay oo maxkamadii looyaradii hadleen oo arintii cadaatay oo dawladii Kenya ay weysay waxay ku mamarsiyoto alla hadii bad laga galo waxay dhigeen moogta waan ka gaday maxaan ku haystaa ceebteena soo bixi lahayd waxaan gadnaak imaalaha wixii dhanaa banaanka dawladda Kenya banaanka soo dhigtay ahayd wixii markay dhici waayeen dadaa wali sii wada hadda ninka asagoo og xaq og wixii ogaaday ay iyo dacaayad sii wadaanade kaas de aniga ilaahay asiga aan kala harayna laakiin intii qaldaneed ku qaldaneed dad badan oo Soomaali soo cudur daartay dad badan oo Soomaaliya ayaa cafis iga dalbado iska cafi kuwa hadda aan soo gaari waayeen waa biga cafisba laakiin maqaarkayga waa adag yahay 10 sano oo soo adkaysataas waxaan u aqaanaa marka character assassination in dadka laga dilo sumcadda markii sumcadina ka dilo waayeen in anagoo nool dilaaba timidba waxa badan ku dilo marka ilaahay idin naga bixi labadaba aan kana siiyo siyaasadda adduunka siyaasadda waa badan tahay waa badan tahay waa mashquul badan tahay waa muran badan tahay waa xanaaq badan tahay waxa soo dhan marka soo duubtay marmar aad istiraahid ka naso xoogaa break time ka qaado maxaad ku nasataa ujeedada waxa way su'aashaydu heesaha Soomaalida aad iyo Cabdul Xasan gabaygiisa maska saarata maxaad ku madadaaltaa markaad siyaasadda ka maqan horta anigu fankaadan u jeclaa caliyow dadka aad u dhageystana waa ahay waxaan kaloo aan ku nastaaho oo runtii nasashada igu muhiimsan akhriska dadka aad u akhriyaan aniga ma sha Allah akhriska waan ku nastaa laakiin fankana aadan u dhageystaa runtii dad badan heesii hore iyo kuwa cusub waliba heesii hore fanaaniinta cusub qaadaan waan laakiin markastana waan akhriyaa suugaanta waan akhriyaa ma dhageysto inta badan laakiin waan akhriyaa dadka buugta ay qoraan gaariya hadraawi doodaan raga wax laga qoray taariikhda laga qoray waan akhriyaa runtii gabayada laakiin suugaanta aadan u dhageystaa runtii suugaanta dad badan qaad ka fahamsan waxaa jiro imaam weyn oo imaamka muslimiinta kamid ah oo leeyahay Abi Hamid al-Ghazali هذا لو يري أمر بيقصور عاد عجيب وهو يري من لم يهزه العوت وأوتاره والربيع وأزهاره فهو مريض المزاج يحتاج إلى العلاج معناه ذو حواي قفكي أين عودك أو سنروح أين وبح جوجل مركو رشان أو صن معناه سمينين وقفك جيران ولاهي مزاجك استينك جيران ولاهي داو بهاي مركب فنك قفك أنا دقيسان ونن أقرنين سوغان تصومالي وسوغان رجع runti buuxda bisil aad u macaan markii hadii waliba lagu fasiro lagu macneeyo waxaan ku talinayaa waliba madaxa dalka hadda joogta inay suuganta aad u akhriyaan dabcan heesii hore kala wada dhigeysta kuwii dhexe ee la jaan qaaday iyana waad maqashay in badan baad ka garan kartaa marka la daaro ama dadka soo baxo kuwa dambe dhalinyarada wali dhigtaan ku soo dhacday fanaan leh ka jacaylka u ka lina wali badi markii aad waan kusoo gabagabeyna barnaamijkan Cabdiraxmaan isbedelka cusub ee dhinaca Ethiopia ka yimid ee Soomaaliya saameynta ku leeyahay iyo dalalka jaarka Eritrea hadii ay ku reeyahay Djibouti Somaliland Soomaaliya inteeda kale arrimahaas oo dhan iyo dhinaca shida aragtidaadu waa sidee wallahi Ali oo aragtideedu waa aragti dhowr meel aan ku cadeeyay dadka Soomaaliyeed aniga waxaan dhahay markii hore dawladda naga maqneed dawladda raadinaynay laakiin hadda waxaan halis ku jirtay jiritaanka Soomaaliya Soomaalinimadeena because geeska Afrika isbedelka ka imaanaya wuxuu saameyn karaa jiritaanka Soomaalinimadeena saas daraadeed Soomaalida waliba waxaan la hadlayaa degan maaragtay dhulka Soomaali galbeed ama ogadeen ama kaliya shan wixii loo yaqaano in iska dhinac iska dhigaan khilaafaadka dhexdooda ah lama gaarin xilligii dambi geystay laga xisaabtami lahaa waxa adduunku waxa la yiraahdo transitional justice jiro marka lama gaarin xilligaas dadkii kale ee qowmiyaadkii Ethiopia qolada baba garbeys dabada isgashatay garbahana way isqabsadeen nimanka qolada talada hayso oramada
waan ognahay oo aan la filowaa qabaan rag dagaalamayay dhalinyaro kacdoon waday oo nin magaaladan degan Minneapolis oo madax u ahayna waa jiraan madaxweyne gobol ay qabaan oo iyo prime minister ka tirsan qoladii dalka xukuumaysa ka tirsanaa saasay tahayna gacmaha ay isqabsadeen oo danta Oromada ayay meesha ka fiiriyeen Soomaalidu waxaa muhiim inay danta Soomaalida ka fiiriyaan ko oo aniga cali asaas iyo ali cabdi asaas iyo arinta aysan noqon midnimada ay fiiriyaan ha haddaan deganahay Soomaaliya jamhuuriyadda haddaan deganahay NFD haddaan deganahay waxgaradkii elite Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya federaalkana ayaga hadda saldhiga dadku soo fiirinayaan waa inaysan noqonin dawlad ka heelisa Soomaalida saasanta iyo muuqata dawladdii waxay ka heelinaysaa Soomaalidii waxayna ugu heelinaysaa qalbi dhagax dhiibtay heelay ahayd Soomaalida ka heelisay qadiyada halganka ka heelisay Djibouti ka safatay waata Eritrea maanta loona tagay laguna soo dhaweynayo ayadana laga hadal arintii Djibouti waxa ka socda kilanka shanaad wax odaytinima aysan ku lahayn Soomaalida kala tashanaynin waxaana maanta madaxda dalka joogta inay ku mashquulaan sidee Soomaalida Kenya joogtay iyo Soomaalida Ethiopia joogtay iyo ay dadkooda elite-ka waxgaradka iyo Djibouti inta loo martay qaado la yiraahdo war laga arinsada arihi Soomaaliya ala isbedel xoog laan ugu socda runtii Oromada wadadan walaalanahay darisnimada ka soko wada majority-gooda muslimin waa qolo anaga ayaga weligood aan cadaadis ku jirnay iyo dhibaato aan la kulmaynay laakiin saasay tahay dhulaan isku haynaa mani in loo maaray arintaas wuxuu baahan tahay si aad u degan laakiin waxaan ka xumay caliyo dawladdii waxaa soo arki lahayd aragti oo hadda waa la socotaa oo musawac iyo waxaa laga shaqeeysiinaya iyo asab yaa rabaa in Soomaaliya iyo Djibouti inta laga gediyo Ethiopia xaq loo leexiyo dawladdii waxaa soo dhan arki lahayd aragtidaas la imaan lahayd aniga ma muuqato runtii waxay ku mashquulsan tahay Adana Abshakur Axmed Obe Xakirid Shariif Xasan doorashadiisa hebel ku bedel gudoomiyaha baarlamaanka yaan la furin hebel yaan la yeelin waxyaalo yar yar oo iska raqiis ee dawladdii ku mashquulsan tahay waa ayaan daro dawladda u jeedinayaan ka wada inay aragti fog oo muuqaal dheer leh inay yeelatay hoose isku mashquulin siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame aan siiyo fursad daqiiqada oo aad kula hadashid dadka aad doonaysa xisbigaaga in ama ka soo qayb galaan ama si guud Soomaalinimada inay noqdaan dad kelmadii aad oran lahayd ama aad soo jeedin lahayd dadweynaha Soomaaliyeed runtii aad waxaan uga codsanaynaa in ay tixgelinta ay noo hayaan ama meel kasta si nagu soo dhaweeyeen iyo taageerada ay noo hayaan inta ku taxan Facebookan inta ku taxan bartana Twitterka inta xafladaheena iyo barnaamijka aan qabato timaada inta dhageysta wareysiyadeena commentiyadooda iyo waana soo gaaraan aadan uga mahadcelinaa labo waxaa leenahay xisbiga wadajir website uu leeyahay www.wadajir.org la yiraahdaa xubinnimada iyo code of conduct-ga iyo barnaamijka xisbiga iyo aragtida xisbiga ku jirta inay booqdaan ayaa rajaynaynaa xisbiga inay ku soo biiraan waxaan kaloo rajaynaynaa dalka Soomaaliyeed wuxuu marayaa marxalad aad u adag in Soomaalinimada xoog la saaro oo la iska daayo la iska yareeyo waxyaalaha kale oo Soomaalinimada ka sokeeyo ama qabiil ama deegaan macna waa noo sameey waayay adduunka hadda isgaashan boorashiyo maraya gobolka isgaashan boorashiyo ku jira Soomaalinimada in la xoojiyo iyo dawladnimada in la xoojiyo qarannimada in xoog la saaro oo loo soo jeesto midnimo Soomaaliyeed kula talinaya dadka Soomaaliyeed aad u mahadsan yihiin aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan intii aad timi magaalada Minneapolis ma cunto hilibgeel maya macsoor meel wali armaay magaaladu waa Muqdisho oo Muqdishada labaad bay ku ma sha Allah mar kale ayaan ku soo dhaweeyay insha Allah thank you very much ma santa Ali